qisada horeysa waxay dhaxmartay in reer biya iyo asxaabigii la oran jiray Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum wa ardaahum Abdullah asxaabtiisu la socday kaana yasiru fi sahraa sahraa Madiina ka shisheeyo soconay wuxuu ku soo baxay isagiyo saaxiibadii iyaga oo meel iska fadhiya ayaa nin dhalinyaro ah oo ari la jooga ayaa ku soo baxay Abdullah iyo saaxiibadiisiyo qadaynayo oo meel wax ku cunaya وديقسنمدي أصحابته أي الهين فدعاه ابن عمر إلى الطعام وقال له هلم يا راعي هلم فأصب من هذه الصفرة الطعام صفرة الطعام وقال يوم نلعب بالراشنك عبد الله بن عمر بايري قال يقدر نلعب الراشنك ساسي قبل تايو قفكم مركا وحونا يددك أكتيسة جوغا إلي إنكاري آفة ويجرتائية دبدر إنه كأبعنا صح معها مركز وحول كالا يوم نلعب فقال الراعي إني صائم نكي أرجع لك وحول وان صومنا ابن عمر بالي وحول أتصوم في مثل هذا اليوم الشديد حر ما أنت يصير أكروش هاي حرارته أياد صومنت هايبو ولبنا وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم أديقوا ولبا أرنا لك ما أريد رباط بورا لدين شوغا سحراغان كنو وليبا صومان نيكا إساقا هاي وحوري ها واساسا كصومان هايبو ابن عمر با وحدنا يختبر أمانته والتقوى وحدنا بل إنو نيكا إساقا وحنو شيغا يا كدبي هاي نسيت جابيو الله كعبسي سي أمانة ديس او ايغو مركز وحول فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليها بل كورنا أرجعنا وضعته أداد بدنا جاي يسون العكسين وريبنا مركان وقلنا هلب كيسان وحكاسين وهلب كقلبت أتوافرت أنت أسوء شيء فقال الغلام إنها ليست لي إنها غنم سيدي إنك يراوح أرجعنا نقبله ninka sayidkayga ah madaxdayda abaale waa amaana umadeed qaal ibn umar qul lahu akalaha dhib abdullah ibn umar wuxuu yiri waxaad ku tidhaahdaa ee bahalkiyayga hal oran jiray ayaa cunay maanta neefkii caynka aha uu ka shubay bahal baa cunay iska dhasido yar uu si eegaya bal iimaankiisa فغضب الراعي وابتعد عنه وهو يرفع أصبعه إلى السماء ويقول فأين الله مركا إن كيرا أنت كدر كابن عمر أيسري كنوك ابتلين يا ملها تنوح فأين الله إلى هاي حق وشرع إلى هاي ميو مقينه دي سيد كيجي آنو يأركين إلى هاي بيانو يأركين ابن عمر وحب بلا مركا إنه إرجع كعل عليه فظل ابن عمر يردد مقولة الراعي فأين الله فأين الله ويبكي ويبكي marka intuu ilmeeyay ibn Umar wuxuu leeyahay eragiibu ku celceliyay ilaahay xaquu jira ilaahay xaquu jira markuu Madiina soo galay ayaa wuxuu baadi doonay ninkii xoolahan iska lahaa iyo adoonka uu soo helay kadibna uu la hadlay wuxuu haday kula wanaagsan tahay arigaaga halka jooga waan jecelahay isaga iyo adoonkaba ma adiga iibin ها وان كايبنيا لعق wanaagsanna wuu dhigay arigii iyo wuxuu ka iibsaday adoonka iyo wada socda ilaa ninkan looma kala qaadi karo hadii la yiraahdo adoonka iga iibina wuxuu oranayaa ariga dayacmaya hadii la yiraahdo ariga kaligii iibina adoonku xaquu ku soo harayaa buu leeyahay marka ninkan waxa dan oo labadan oo iswata in laga iibsado labadiiba uu ka iibsaday Abdullah ibn Umar markaasuu xoreeyay ninkii adoonka ahaa intuu u jeeday intaas ahayd wuxuu ninkani kuma fiicna inuu adoon sii noqdo bani aadam waxba uu shaqeynina ilaahay si xor ah u ahaaday abaal gudkii alla ka cabsigu ugu abaal guday sidaasi baa markaa runtii aad arki karaysaa in dadka qaarkood marka iimaanku uu biyo dhigo meel kasta ha joogaan miyiga magaalada adaabta ilaahay ka edabsanayaan midaadu cajiiba way haday dhacdaba qofku inuu istiraahdo ilaahay baad ka qarsoomaysaa subhanahu wa ta'ala wa fashilayah hadaad imka qofku istiraahdo waxa iska samee ilaahay kuma arkayo
oo uu ku dhiirado oo uu fuliyo fashilaadii ilaahay baa fashilinaya Soomaalidu waxay yiraahdaan ma hungowdo daacade meel uu buu ilaahay ka kabi doonaa waxay yiraahdaan sir ma qabe ilaahay baa u sahara isagu khaain maaha laakiin ilaahay baa sahan u diraya waa waxay soo tijaabiyeen qiso kale oo iyadana aynu ku sii cadaynayna taa aynu sheegnay oo ah qofku hadii uu isiraahdo raadaarkii ilaahay kuma hayo wuu hayaayo dadku ilaahay tusaya waxa jiray waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qisada sanadkeed qoliyaha qaarkood daciif bay ku sheegan laakiin sida saxda ah waxa weeyaan ay xasan tahay heerkii lagu daliishan karayay ay gaadhay qisadu qisatu bani ubayriq baa la yiraahdaa fi cilmi tafsiir waa qiso macruufa oo culimada tafsiirkuna maraajicda waaweyn markay sharxayaan aayaadka suuratu nisaa 105 meelaha iyo inta 8 aayadooda wada socda markay sharxayaan bay qisada soo qaataan oo ka heli karaysaa qisadaas waxay ahayd niman baa jiray reer ansaareed oo reer Madiina ilma ubayriq baa la oran jiray magacyadoodu saddex isku eg bay ahaan oo bishri bushayr mubashir saddexda magac ay isku eg bay lahaayeen mid kamid oo bushayrka la oran jiray bashirna waa la yiraahdaa uu iska kadeedna intuu gabaya tiriyo asxaabta ku cayaabo oran jiray nin baa yiri khadiyaan baa laga joogay habeenkii dambe guri asxaab rifaaca la oran jiray guri uu lahaa ayay xadeen qisada way dheeraadeen waa soo gaabinaynaa waxay ka qaateen raashin iyo hub nin yahuudiya ayay u xambaariyeen oo waxay markii iyagii la qabsaday bay yiraahdeen war annaga hanagu warwareeginay yahuudigaas wixii ni qaatay kadibna ninkaasiba ay eedeeyeen qoladii waxaday ninkii baa la tuhmay inkastoo la xukumin waa tuhmaadii xaqiisa u jeesatay asxaabigii rifaacana wuba iskaga hadhayba wabkii raashinkii laga xaday laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad uu soo dejiyay uu ninkaa yahuudigaana ku bari yeelayo isla markaana munaafiqiina uu ku eedaynayo iyo ciddii u yara janjeersatayba nabigii asxaabtii cid walba waa loo digay sidaasaana qisadii ay ku fashilantay oo markii dambe lagu ogaaday cidda waxada inuu ahaa ninkii bashiir la oran jiray quraankani markuu soo dego firdhalay maka iyo xaggaas uu cararay gabadh buu marti u noqday iyadiina waxa uu gabiyay xasaan bin thaabit tiina way sii eriday طائف بو ku dhinto guri ku dumay markii dambe in kaartaas ay ku dhacday ninkii ilaahay riqaabadiisa iska eegi waayay halkaas uu ku baabaayo ku dhintay wala takun lil khaa'inina khasiman wa dhawr ayadooda isku xigay ha u doodi qof khaa'ina wala tujadil 'an alladhina yaqtanuna anfusahum ha u doodin mar kala lagu celiyay kuwa naftooda khiyaameynaya yastaghfuna min Allah wala yastaghfuna min an-nas wala yastaghfuna min Allah وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول dadka iska qarinayaan laakiin ilaahay iska ma qarinaya subhanahu wa ta'ala waxa canaan ka dhacay sideeda aayadooda isku xiga mowduucaas ay ka hadlay marka way dhacdaa dadka qaar kood inta cid dilaa inta cid dhacaan inay kharibaan kadibna ay doonaan inay haddana bari noqdaan ilaahay baa saa u fashilinaya tusaalayaasha hadii aynu sii wadno waqtigan kulay gaalada iyo shaytaanka iyo tiknoolajiyadooda iyo isxambaarkaas dadku aad ugu jahaysan yahay waxa kamida maatida iyo dumarka bal dumarku iyaguna siday u dareemi jireen inuu ilaahay u helinayo eegayo qisooyin baynu soo qaadan doonaa waxa jirtay waqtigii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kormeer buu sameyn jiray Umar magaalada Madiina u dhex wareegi jiray wuxuu u socdaa حقيقة رادين يو كورجل وحدنا يا بالعدة ربان يعد عبان إيسا إنه يسقو صوت هابطه وأنا عدي بقى ورمين بقى سقو قولي أبين ودو ده قولي هنا في لوين كان دير كورك سين ما هينه وبولير وجودها لقى مقليه دبده لقى مقليه وجودها لقى أورانيه مركب مقليه قبل قوي ترين إيسا وحيلا ذا ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه وقبل لبدا بيت كمدهين عاوه بين كودر هذا بيت
waxaana ay soo jeediyay waxaanan haysan saygaygii alla noolaan lahaa caawa aan hurdo la qaadan lahaa walla cabsida ilaahay aan ka cabsanaya haddaanay jirin sariirtaasi caawa way ciyaari lahayd ama way dhaqdhaqaaqi lahayd oo nin baan ka sinaysan lahaa laakiin cabsida ilaahay iyo ishii ilaahay oo ay haysa ayaan arrinkaa u daynayaa gurigii buu calaamadiyey markaa cumar subaxdii buu markaa gurigaa la soo ogaado waa la soo ogaaday mushkiladda ka jirta inay tahay gabadha ninkeedii oo maqan oo ciidamada ku maqan markaa waraysi buu la yeeshay xaawalaydiyo go-aan si uu u qaato oo mushkiladdan xalkeeda u gaadho ilaan haddii xaas ka mid a xaasaska muslimiinta ay xumaato bulshadii oo dhan baa xumaanaysa markaa wuxuu uhi gabadha ninkeeda intay ka samri kartaa waxay idhaahdeen bil bay ugu baahanaysa bisha labaadna baahidaa sii badanaysa bisha saddexaadna way ka sii yaraanaysaa bisha afraadna sabirkaaba ka dhammaanaya markaa wuxuu ihi haddaba muddo kooban buu qabto 3 bilood 4 bilood muddo cayiman buu qabto wuxuu ihi ciidamada ha la soo kala bedela muddada ay gabadhu ninkeeda aanay ka samri karayn markuu ciidanka ninku intaa in leeg ku maqnaadaha la soo celiyo cid kale ha bedesho go-aankaas uu qaato marka waxaa loo baahan yahay gabadha ninkeeda uu ka maqan yahay inay isha ilaahay iska eegto subxaana wa tacaala ta aan in lahayna waa sidoo kale ixtiraamkiina ay ogaato ka dhaxeeyey iyadii ehelkeeda waxaa kaloo aynu tusaale usoo qaadanayna asxaabigii la odhan jiray nucmaan ibnu bashiir hooyadii ayaa la hadashay aabbihii bashiiroo waxay ku tidhi inankayga nucmaan waxaan doonaya inaad ina wanaagsan weeye wax siiso wuu siiyo addoon buu siiyey dib bay u shakideen markaa waxay tihi war waxaan ka yaabayaa dee oori labaad baan ahaayo in malaha xinkii iyo waxay qaadeene bal inuu inoo xalaal yahay iyo in kale xaaraan unbaa inoogu darane iyo inuu ilaahay inoogu cadhoodee soo weydii nebiga qisada marar badan baa aragteen laakiin sababteedaa u baahan lasii fahmo xaaskaa waxay tihi bal soo weyd nebiga markhaati uga soo dhig iyadu markaa waxay uga jeedaa bal inuu nebigu diido iyo inuu fasaxo waa laga yaabaa inaad mararka qaarkood marka qisada la fasirayo dadka qaarkood ay ku fasiraan kusii adkee bay lahayd culimadu waxay leeyihin kusii adkee may lahayne iska hubi bay lahayd dee markii nebiga u geeyuu yihi inankaygan waxaan siiye deeqdan ee ka markhaati haw nebigu waa kii soo celiyey ee yidhi mar haddaanad carruurta wada siinin waa celis way aqbashay taasay iska hubinaysa marka waa lagama maarmaan ruuxa dumarka iyo dumarka la wada qabaa isii iyo idhiib iyo intaydii meeday un inaanay ku adkaysanine ay eegto horta waxaan ilaahay raalli maka yihi waxaan ma cadaalad darra ma jawr baa waxaanaad qaadanaysaa muxuu yahay qiso kale iyaduna waxay ka dhacday sacuudigay ahayd wakti fog may ahayn gabadh baa ninkeedii jeclayd gabadh laakiin waxay diin laho aada wanaagsan gabadhaasi ninkeedii wuu guursaday waxay ogaatay inuu guursaday marka marada madaxa kumay duubanin sida dumar badani sameeyaanoo may hinaasine ninkiibay daba gashay oo waxay soo ogaatay xaaskiisa labaad meesha uu galo shuqad halkaas bay ku ogaatay inuu xaasku galo soo waraysatay oo magaceediina way heshay aad bay u heleegiin dumarkuna baabka isaga ah mar haddii la yidhaha tubaa lagula qabaa laydh bay ku shidaysaa way soo helaysaa way iska aamustay markaa innaba waxay tidhi ninkaaga ha dhibin marnaba ha ka nixinin sidii bay kaga aamustay muddaa ka soo wareegtay markaa alla wuxuu qadaray inuu ninkeedii dhinto ama ninkii labada dumarhaa qabayba uu dhinto way fikirto waxay tidhi dhaxalka dee 8 meeloodoo meel baad leedahay inta kale carruurtaa leh laakiin diin ahaan gabadhii lagula qabay baa meeshaa kula leh ilaa dumarka labada dumara marka ninkuu ka dhinto xoolaha 8 meeloodoo meel bay labadoodu wada leeyihin soo maaha umunkay wada leeyihin marka waxay tihi gabadhii ku soo doonan mayso oo inaad dilaysaabay moodi cid kalena kuma oga dee isagaaba qarsanayayba cid kalena ma oga marka adigoo qaadan kara umunkaasoo aan cidina kuugu imanayn soo ilaahay kuma arkaya subxaana wa tacaala iyadii bay raadisay markaa meeshii bay ugu tagtay way warwaraysatay waxay tihi soo heblaaye maad ahayn soo hebel kuma qabin soo ma ogid inuu hebel dhintay haabay tii waan ogaha hadda waxaan kuu sheegayaa bay tihi dhaxalkii umunkii labadeennaa wada lahaa anuguna tii kale kaa weynayd baan ahaye dee qaybtaadii baan kuu sidaa
iyaduna mid ka sii cajiibsan bay noqotayoo le dadka wanaagsani way isdoontaan watayibaatu litayibiin waxay tihi waxaan kuu sheegi lahaa walaal aad baad u mahadsan tahay wuuba ifurayba oo dhaxal kuma lihi marka waxaad yeelaysaa allah ku barakeeye iska qaado sidiiba iyadoo baraxan oo wixii uu xalaal u yahay oo qalbigeedii ku degay oo aan warwarsanayn ayay isaga soo noqotay wixeedii maalkeedii ku qaxwaysa iyaba waa tusaale u tahay runtii dadka had iyo jeer isku dayaya inay iyagu dhiishoodii iyo haantooda keligood buuxsadaan inuu qofku cadaaladda ilaaliyo waraca iyo xalaal miirashada ilaaliyo ilaahay soo kuma arkayo inuu ka duulo qiso kale oo waxaa soo warinaya ibnuljawsi alxaafid ibnuljawsi raximah ullah kitaabkiisa safwatu safwa waxa uu xusayaa nin reer miya isagoo baadiyaha jooga ayaa wuxuu habeen la noolaaday gabadh bay sarkeen way wada joogeen muddo gabadhii uu jeclaystay wuxuu yidhi heblaayoy caawa waxaan doonayaa inaan xumaan iska samayno maya bay tidho way diiday markii dambe uu la dooda wuxuu yidhi maxaad u diidaysa laa yaraana ila alkawaakib xidigaha mooye cid kale inama arkaysee maxaa ku dhibay darbadeennaa xumaanta aynu iska ridanno aynu iska aamusto markaa waxay tidhi ereyga laga guntay wuxuu ahaa faqaalat in lam yaranaa axadu faayna almukawkib haddaanay kawaakibta mooye cid kale ayna arkayn kii kawaakibta abuuray waa mee ilaahay xidigahaad sheegaysa abuuray miyaanu isagu ina arkayn haddaanay xidigaha mooye cid kale ayna arkayn hadda kii xidigaha abuuraa ina arkaya marka waxaynu uga jeednaa oo tusaalayaasha aynu soo qaadanaynaa dadka maanta jooga in badan baa ishooda iyo afkooda xaaraan ku wada waliba waxaan la iska arkay ee social mediaha iyo tviyada iyo suuradaha iyo markaasaa xaaraanta dhaguhuna ku daaleen indhuhuna ku daaleen afka laga hadlayaana uu ka daalay afka lagu cunayaana ku daalay marka waxaynu leenahay qisooyinkaasi aynu soo xusnay cibra iyo cida wax lagu qaato ayaa ugu filan dadka waaya haddii aynu sii wadno aadaabti ilaahay laga edabsanaya subxaanahu watacaala waxaa ka mid a aadaabta alisticaanatu billaah in ilaahay aada garabsato oo la kaashado subxaanahu watacaala oo qofka muslimka ay tallaabo walba qaadayo wuxuu ogsoon yahay inaanu ilaahay ka maarmayn awood kasta ha lahaado adduun kasta ha lahaado ruknigiisa iyo tiirka u weyn u cuskanayaa waa ilaahay qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أود ساس إلهي وغورت وإحنا لا أنت مدقاقة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قفك مركو النبي يقول الله الله عليه الصلاة والسلام وحول الله هديات عيد قرقار ويدي سنة إلهي ويديس إياك نعبد وإياك نستعين مالو والبا هبين والبا تاسين كل العلنين مركين تكنين وإياك نستعين كلي جابان قرقار كادونينا محاد قرقار وقدونيسا دوانات كمارمين مركا وحاد أكسونتها عيد والبينو كاقدوي إلهي السيابة إنه قاعد بسنة إنه حكم إذا محبة الله إنه نتشعلانه تشعيلان إسكشاقة شاهين تشعيلان أفكأون هين لكن تشعيل دبه والذين آمنوا أشد حبا لله إلهي بأوحر المؤمنين تشعيل كإله هذا تشعيلهين أيها كوين oo ka mutakarsan jacaylka cid waliba sheeganaysa in ilaahayda jecesh dad baa ilaahda ilaahayaashayadaan jecelna ka dhabba hadii la ilaahay u dhinto way iska tagaan hadii la ilaahay gaalka ilaahaagan aad jeceshahay u kaalayo u dhimo uma dhimanayo laakiin muuminku ilaahiisa iyo amarkiisa u dhimanaya waxa kamida markaas maxabatullah maxabadu waa maxabada loo yaqaan al mahabbatu al ikhtiyariya maxabada doorashada aw al mahabba al ittibaa'iyya qofku naftiisa waxaan ku qasbayo ku dirqeeyo waxa kamida siyaabaha ilaahay inuuga edabsanayna subxaanahu watacaala tacdiimu shacaa'iri diintiisu calaamooyinka waaweyn ay leedahay inaynu weyneyno waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waqtiga qaaliga iyo goobaha muqadasaadka sida xarameynka oo kale iyo diinta ilaahay asalkeeda sida quraanka oo kale waxyaabahaas oo dhan maxad weyneynaysa
waxaad u weyneynaysaa ilaahay baad ku weyneynaysaa subxaana wa taala ilaahay baad ka edebsanaysaa inaad kitaabka qur-aanka halkaa ku tuurto iminka maxaa kuu diidaya waxa kala duway buugga halkaas af carabiga ku qoranaya isaga waa kalaamkii ilaahay baad ka edebsanaysaa subxaana wa tacaala waxyaabaha aynu ilaahay kaga edebsanayna waxaa ka mid ah alghadab ida tuhikat xurumaat ullah inaynu cadhoono marka ilaahay diintiisa iyo muqadasaadkiisa iyo waxyaabaha agtiisa xurmada kale marka lagu xadgudbo waa inaynu xanaaqno si ka badan sida aynu xanaaqno marka reeraheenna la taabto qofka haddii reerkooda iminka halkaa la caayo cerkaasuu marayaa qowlaladuu ka xumbaynayaa bud buu soo qaadanayaa tvga iyo idaacadoo dhan buu ka difaacayaa wuu ka hadlayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala haddii diintiisa la caayo oo rasuulka la caayo sala allahu calayhi wasalam hadduu dhiidhiyi waayo oo uu damqan waayo maa ta'adab maca allah ilaahay kama edabsanin subxaana wa tacaala marka taasi qiiradaa qofka gelaysaa waxay sheegaysaa ilaahay oo qalbigiisa ku weyn waxaa ka mid a waxyaabaha muqadasaadka aan idhaahnay aladabu maca allah altawakulu cala allah inuu addoonku ilaahay tala saarto hadduu addoonku tallaabadu qaadayaba ilaahay tala saaran waayo ilaahay kamuu edabsinin laakiin wuxuu isu aaminsan yahay inuu yahay isku filane waman yatawakkal cala alxayi aladii laa yamuut ilaaha aan dhibanaynin aan geeriye ku imanayn ilaahaa tala saaro waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu ina allaha baaligu amri ilaahay waan ku fil lahay buu uhi qofka itala saarta waan ku fil lahay marna garab iyo gaashaan iga waayi maayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka ku abaabulaya inay ilaahay tala saartaan wuxuu leeyahy low annakum tawakkaluuna